Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa sidee screenshot ugu qaadi kartaa personal computerkaaga ee Windows-ga ah daawasho wanaagsan. magacaygu waa Maxamed Maxamuud. channelkani waa Caaqiltay. kanaalkani waxaan kusoo gudbinaa muuqaalo ku saabsan teknoolajiyada sida isticmaalida apps-ka iyo sawir editing-ka. fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar, gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga. mahadsanid. muuqaalkan maanta waxaan kugu soo gudbinayaa laba qaabood aad screenshot ugu qaadi kartid personal computerkaaga ama laptopkaaga. aan horey u sii gudagalna marka muuqaalkeena. qaabka koowaad aad screenshot ugu qaadi kartid computerkaaga waa in aad isticmaashid Sniping tool-ka waa app oo free ah wuxuuna la socdaa Windows-ga. ma u baahnid marka in aad soo degsatid ama operating system-ka computerkaaga ku jiro oo yahay Windows, waad ka heli kartaa marka. si aan marka screenshot aan u qaadno, waxaad soo furataa appka Sniping tool, waxaad tagtaa search bar-ka, waxaad ku qortaa Sniping tool. kadib markaad soo furatid appka wuxuu leeyahay 4 nuucood aad screenshot ugu qaadi kartid. afartaba waan isla fiirin doonaa marka. waxaad taabataa marka Sniping mode, kadib waxaad doorataa qaabka aad screenshot-ka u qaadi lahayd. waxaad taabataa marka nuuca koowaad ee ku qoran tahay Freeform Snip. Freeform Snip-ka waa qaab aan xadidnayn screenshot-kiisa. waxaad u qaadi kartaa marka screenshot-ka ama sawirka nuuca aad rabtid, macnaha maba xadidnaba. waxaad isticmaalaysaa maqaskani, kadibna drawing camal wax la sawiranayo camal ayaad u sameynaysaa. intaasi kadib marka waxaan isla sameynaynaa qaab kale oo aan screenshot-ka u qaadi karno. isla sidoo kale waxaad taabataa marka Sniping mode-ka, waxaad doorataa meesha ay ku qoran tahay rectangular snip. asagana waa form kale aad u qaadi kartid marka screenshot-ka. wuxuu u sameysmayaa marka si qaab 4 gees oo kale. sidaasi ayaad ugu qaadi kartaa marka sawirka aad rabtid. haddana waxaan kaloo isla fiirinaynaa marka nuuc kale oo aan Sniping tool-ka ugu qaadi karno sawir. waxaad isla sidoo kale usoo furtaa marka Sniping mode-ka, kadib waxaad doorataa meesha ay ku qoran tahay Windows Snip. Windows Sniping-ka wuxuu awood u leeyahay marka hal application oo keliya oo ka soo muuqdo shaashadaada halfkeeda ama barkeeda in oo sawir keligiisa application-kaas la khuseeyo inuu ka qaado. macnaha waxaan ula jeedaa waxaad dooranaysaa appka aad rabtid in aad sawirka lagaaga qaado gudihiisa, asagoo appka ka soo muuqanayo marka qayb ka mid ah shaashada computerkaaga sida aan hadda sameynay oo kale. haddana waxaan kaloo isla fiirinaynaa marka nuuc kale oo aan Sniping tool-ka ugu qaadi karno sawir. waxaad tagtaa marka Sniping mode-ka, full screen snip dooro. asagana waxa waaye kii hore cagsigiisa. kii hore wuxuu sameynaya ama Windows Snip-ka wuxuu sameynaya in aad specific ama meel khaas ah ama application gooni ah oo ka soo muuqday shaashadaada in aad sawir ugu qaadid. laakiin kan wuxuu sameynayaa waxa dhan shaashada ka soo muuqdo ayuu sawir ka qaadaya oo shaashada hal meel ma kaaga tagay, full screen waaba. asagana sidaas oo kale ayuu u sameynayaa. waxaan kaloo sameynaynaa marka sawirka in aan save gareysano. marka laba wayba waa loo save garay karaa. in aad short way aad isticmaashid oo hab gaaban oo kale, sida in aad taabatid Ctrl+S ama aad tagtid fileska, kadibna aad taabatid save as. kadib waxaad dooranaysaa halka aad ka dhigi lahayd computerkaaga, kadibna magac ayaad u bixinaysaa. sidaas ayaad ku save gareysatay. sida aan horey ugu sheegnay muuqaalka gudihiisa in aan kugu soo bandhigi doono laba qaab aad screenshot ugu qaadi kartid. qaabka koowaad waxaan kusoo qeexnay Sniping tool-ka adigoo isticmaali kara. Sniping tool-kana waxaa ka farcamo 4 qaabood. waxaa kaloo jiro qaab kale oo fudud oo Sniping tool-ka ka dhib yar, kaasoo ku qaadaya marka asigana hal way oo keliya. waygaasi waxaa waaye in uu kaaga qaado screenshot shaashada oo idil. waxaadna isku taabanaysaa marka Alt iyo
print screen marka waxaa laga yaabaa inuu xarfo gaaban kugu soo gaabiyo sida BRTSC batankaasi ayaad riixaysaa marka sawirka aad short formkaas u qaadid wuxuu kugu keedinayaa OneDrive-ka computerkaaga ku dhex jiro kadib marka aad tagtid OneDrive-ka waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay marka pictures kadib waxaad ka sii dooranaysaa screenshot meesha ay ku qoran tahay halkaasi ayuu kugu keedinayaa marka sawirada aad ku qaadid qaabka fudud ee Ultra Print Screen muuqaalkeena marka intaasi ayuu ku egyahay fadlan hadduu ku cajabiyo muuqaalka ama aad ka faa'iiday like saar siina share garee muuqaalka oo asxaabtaada kale la wadaag mahadsanid